arinta waxa way guuxay iyo bilaal bulshaawi sida ogtiin xalay maanta qabsatay baraha bulshada waxa way labadan laba qof walaalaha oo is eedeeyay guuxay wuxuu dhahay dawladda ilmu soo xiriirin bilaal oo been ay sheegin aan sheekano waxa kadib baarisan sameeyay waxaan la xiriirnay madaxtooyada waxa dhan waa soo hubsanay confirm 100% waxa way cawadana madaxtooyada toos soo wacaysa qofka soo wacay magaciisa sheegi doona waxa way ninka la yiraahdo guuxay waanu telefoonka qabtaa taas oo idin sheegi doona madaxweynaha qof iskama soo wacay madaxweynaha dhan 20 milyan population ka kooban waaye meeshan protocol iyo hab maamuus ay leedahay macnaha waxa waa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud xitaa madaxweynaha markuu wacayo madaxda marka qaranka madaxweynaha caalamka ama afrika markuu wacayo process uu maraa macnaha waxa waa protocol waa qofkaas madaxweynaha Ethiopia ama Kenya ama wadan kale ama ka Sacuudiga kale macnaha boqorka waxa waa ama mataqaana ninka meesha haysto ama Dubai meel kastaba waxa waa madaxweynaha waxa waa xafiiska la gaarsiina xafiis kasta madaxweynaha waxa ka shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeya oo waxa waa kaliyaha koowaad kaliyada saas way protocolkaas loo maraa marka guuxay waxa soo wacay oo la soo xiriiray gacan yaraha koowaad iyo wali kalkaliyaha xafiiska madaxweynaha number 1 magaciisa sheegi doona ninkaas la soo xiriiray haddana markaan ku cilnaa ninkaas awadu soo wacay si fiican u dhagay sheekada u fahantaan iyo waxaana soo u fahantaan marka iyo bilaal dadku ku dhagan dad waxa waa iska waxa waa xaas ninkan horumarkiisa iyo soo qaranku adeegay ka xun yihiin oo wali qabiil soo ciidiis tolkiisa abgalka ninkan qaarkood waxa waa macna horumarkaas u gaaray u diidayin Soomaaliya isagana xaasidin way taas oo idin sheegi doona mataqaana waxa waa walaalayaal anaga soo hubsanay xogtan waa soo baaray xal ilaa maanta dhan soo baaray confirm 100% way waxa waa sida wax u dhacay marka walaalayaal waa ogtiin ninkan waxa waa 25 bishan waxa bishan soo dhaafay waxa waa ciwaankii hoos ku jira ninkan waa tan soo fadhiistay asoo sarin iska saaran sir badan waa soo wadaa taqaana waxa waa caadi heesa iska soo macna cod soo duduubay raalahaadu dhahayo aniga waxa adiga noocaas kadib waa tan soo fadhiistay alle ninkan qof walba jaab gacanta geliyo imaamadii waxaas aan ma dhihin waxaan qof walba ninkan caawi sida ogtiin dad badan kadib u kacay inta u kacay dhan waa maasi ciwaanka hoos ku jira waa shay haatan keen muuqaalka soo duubay aad loo daaway waxa horta waxa waa alxamdulillah subhanahu dhalinyaradu u kacay waxa wixii Soomaali u kacay wixii sanfariyaal oo dhan meel ba joogan bedel ka qayb qaba Allah ku bedel waxa wixii ninkan ku sadaqaystay hal dollar Allah ka dhigay bedel ka qayb qaba Allah ku bedel walaalkan Allah caafi arintan marka in shay marka ninkan walaalayaal waa tuu dhahay madaxweynaha u baahanahay visa oo Europe ninkan waxa waaye qalbigu wuxuu gashtay inuu Jarmal ama Europe saas uu qalbiga gashtay taas way idin sheegi doonaa waana howshiisa waa socotaa waxa waaye walaalayaal ninkan bilaal waa taqaani waxa waa qaranka u shaqeeya wax kasta oo social media iyo wax kasta oo macna qof raba inuu madaxweynaha ama dawladda wax ka codsado ninkan qaabilsan his job waa shaqadiisa way laakiin dad badan cadow ka ah waxa waaye waxum ka qaadayaan waa idin sheegi doonaa marka bilaal waxa waaye codku u gudbiyay ninkan codku soo jeediyay wuxuu u gudbiyay madaxtooyada fadhiisatay madaxweynaha codku waa gaaray madaxweynaha wuu arkay madaxweynaha ma aha nin shakhsi ma aha ama nin ganacsada ma aha waa the Federal Republic of Somalia Allah waxa waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo dhan uu madaxweyne u yahay macnaha waxa qofku codkiisa soo gaaro meesha shaqaalaha joogo mishaar ku qaato kalkaaliyo u dhiibay wuxuu yiri codsigan waa qabanay marka ninka howshiisa hala galo guuxay macnaha ninka yaa waa ninka British Allah aad loo yaqaan waa nin madaxtooyada ka shaqeeya waa kalkaaliyaha koowaad oo madaxweynaha way bilaal uu soo xiriir wuxuu dhahay madaxweynaha kiiska waa qabtay bilaal ninka noo keen macnaha koolka aan ku wada sheekeysano guuxay maanta waa nool yahay haddaan nabsanayo shariifka xog fadhiso daag gadaashiisa wax kasta ugu maanaysin shariifka waa taqaaniina weliina ka shakinina guuxay maanta waa nool yahay guuxay bilaal guuxay la soo xiriir wuxuu dhahay guuxayo British ay soo wacay oo madaxweynaha waxa waaye arintaada waxa waaye waa la qabtay marka waxaan rabaa ninkaas qad ku soo gelina WhatsApp kala soo keenay British oo ah kalkaaliyaha koowaad ee madaxtooyada taqaana Xasan Sheekh Maxamed xafiiskiisa bilaal iyo ninkan waxa laga wada hadlay ninkan arintiisa caafimaadkiisa la wareysto wuxuu dhahay meeshan adiis wax liga ma qaban karo lacag badan waa iga baxday adiga haddana Soomaaliya rab ii kacdayo marka waxaan rabaa inay dhameysaan guuxay suu dhahay waxaan rabaa inay dhameysaan visa iyo Europe iyo meelahaas waxa la hadda waxa la visa Europe waqti dheer u qaadana dad badan waxa la oo aanay dad kalabo inta visa Europe loo soo dhameeyay ay dhunteen waxa kamid ah gabadha xayada kamid ah waa aragtay markii talaani la keenay waa dhuumatay ma sheega wadan kale hadda iska dhibtay ma sheegay sharciga Allah u kasay hadda waa kaasa qofku waxa waaye wadan kale iska dhiiba marka waxa waaye waa sababta keenta hataa waxa waaye baasaboorka diblomaasiga kii Soomaaliga inaan visa dadka caafimaadka ama waxbarashada ama waxaas oo dhan macna ama taqaana barig faneed waxaas oo dhan in loo diido macna waa aragtay Europe dhan way ku dhawaaqday Soomaaliga diblomaasiyada hataa loo joojisay waa sababtaas waa dad badan asaas ku soo baxay marka dawladdu waxay dhahan kiiskan waqti dheer u qaadana guuxayo oo Europe 5 bil 6 bil sugaysa waxa way process dheer in la maro way oo madaxweynaha shacabka ku dhufto la diyaariyo safaarada loo diro dukumeentiyada waxa oo dhan caafimaadkaaga bilooyin qaadanaysa hadda laakiin waxa dhow ah dhahay wadamadan Asia Thailand ama waxa soo garta marka Thailand aan leh waxay asoo qanacsan okay oo dhahay ay kala tageen bilaal waa soo fadhiistay wuxuu dhahay
الحمد لله شوف على مشان طولي والله أقبله يرجوحي بلال وحو هذا المدحتوية كسر بحيث بريتش معنا كالكالية مدحوينها نكاس هذه شيء ولا يقال هذا الكيس أساسه هذا ما بلال مدحوينها صاح الله هاي بلال وحو يجوحي واقبل لما دي مدحوينها هذا القصاص معه هذا اللي بحدي الخوف بالسوق قاضي سومالي سيد هذا من خوف بالسور وقاتا بلال لك أساسه يري حلوة تشوف اللي سجوا حي سو حيا عياتا مسكين كوجي سو جيد فاتحون إلى عافيه دال بدنا كم موقض النساش الآن بدنا كم موقض بدنا كم موقض هرت الله عافيه والله أساسي أقول لك حتى واحد يار له يهي نكأ نصوع بلال ما أهم بريتشا صوعه جو حي مقالك وكسو جارا جو حي واتقانا وأنا أجد إلهي وأجي أدقنا وأقته دور هبين كور بلال دور مالن كور بلال يو كالكالية مدحنا إنا وهذا الشيء إن كيس كان محتوى إقامت إلهي وأجي جو حيو حنوصلنا الله كعافيه عوضة وحب صوعه بريتش تلفون كتاين وقت ودي عوضة وصوعه بريال وصوعه بريتش لا كقوي بس بلا لما كل هاللايو قف كل مكل هاللاي بريتش لا كقوي مركي كيس كاغا لا قبطو بريتش او قبطو كاميرا تا لوو فرا مركو بريتش او قبطو دوكيومنتيدا بريتش او ديرتو markaasoo markuu madaxweynaha wax way shaabada ku dhufana waleey ninkan hojisa la fududeey madaxweynaha markaasoo caadi ku soo wixi kara madaxweyne dhan way protocol iyo system loo maraa shakhsiyaadka wali taaganata adeeg dada xamuusan oo maanta sakaraad oo sariir saaran wallahi billahi taala wallahi marka guuxayo ilaahay ku caafiye qarankana waxa way meel ha wadicin waxa way jooji waxan iyo didmadan badan negative kan iska jooji عوضوا والوصوا confirm وبر والوصوا بريتش والوصوا تلفون كقبل الله نكو عافية السلام عليكم